tacdiyaad ka dhanka ah caruurta iyo dhalinyarta ee salka ku haya dhaqanka waxa aan ka tilmaami karaa guurka khasabka ah waxa loo yaqaano gudniinka fircooniga ah waxa loo yaqaano kufsiga waxa sidoo kale aan ka tilmaami karaa arrimaha caruurta ku shaqaysiga caruurta sidoo kale waxbarasho la'aanta mataqaanaa caruurta runtii waa wax loo baahan yahay in aan ka bulsho ahaan iska wacyi gelino si ay nooga suusho dhaqanka xun ee bulshadeena ku dhex faafay sababaha keena xadgudubyada ka dhanka ah dhalinyarada iyo caruurta khaasatan salka ku haya dhaqanka waxaa ka mid markooda colaadaha saan ognahay colaaduhu waxay daashadeen ummadeena dalka Soomaaliya iyadoo keena barakac dhan mataqaanaa dadkii bila hoy noqdaan waxa wax looga qaban karaa xadgudubyada ka dhanka ah caruurta iyo dhalinyarada salka ku haya dhaqanka qodobka u horeeya waa heerka wacyigelinta bulshada in kor loo qaado maadaama ogsoonnahay heerka wacyigelinta bulshada meesha taagan yahay qodobka labaad oo muhiimkaana waxa weeye in manhajta waxbarashada lagu soo daro in yani qofka kale tixgelinta iyo waxyaabaha basic ah lagu soo daro nidaamka waxbarashada kor loo qaado dhalinyarada iyo caruurtuna ay xaq u helaan inay wax bartaan si u yaraado firaaqoodu qodobka saddexaad oo muhiimsan waxa weeye in cadaalad ay helo qofka dhibanaha ah qofka kalena xaqiisa la mariyo oo yani maxkamadaha ku xeer leh ay shaqo ka qabtaan ka dhalinyaro ahaan waxaan qayb uga noqon karnaa eragtirka xadgudubyada lagu hayo dhalinyarada iyo ciyaalka ee la xiriira dhaqanka inaan noqono agents bilow wanaagsan u noqda fahanka iyo kor u qaadista wacyiga bulshada dhexdeeda sidoo kalena waxaan qayb uga noqon karnaa anaga dhexdeena inaan bilow u noqono inaan kor ugu qaadno sida dhexdeena aan uga bilaabi lahayn inay noqoto midani mid intaas ku sii istaagta anagoo raacayna booliska iyo sharciyada u yaala ilaalinta xuquuqda dhalinyarada iyo caruurta